kulan iyo ismaqal wanaagsan saaxiibayaal halkani waa Sirta Media waa galabnimo Talaado ah taariikhduna ay ku aastaysan tahay 11 bisha May sanada 2021 waxaad ku soo dhawaataan warka galab ee Sirta Media. haddii aan ku bilaabo saddexda mas'uul ee ugu sareysa dawladda waqtigeedu dhamaaday ee Soomaaliya ayaa ku wada maqan safar dalka dibadiisa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ku-xigeenkiisa Mahdi Maxamed Guuleed Qadar gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo muddaxileedkiisu uu dhamaaday 27 Diseembar sanadkii hore 2020 ayaa dhamaantoodu ku maqan safar dibadda madaxweynaha waqtigiisu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u safray maanta Kampala si uu uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni gudoomiyaha golaha shacabka ayaa isna ku maqan socdaal dalka dibadiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa 7 May waxa uu u baxay dalka Sacuudi Carabiya halka ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar uu ku sugan yahay dalka Turkiga kusimaha madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxa Abdiwali Sheekh Ibraahim Muudey ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya halka kusimaha ra'iisul wasaaraha uu yahay Cabduqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya dalka wuxuu wajahayaa xaalado amni doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtooyada haddaba culays intee leg ayay maqnaashaha madaxdaasi u keeni kartaa socodsiinta howlaha badan ee xilligan hor yaala dawladda waqtigeedu udlaaday madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkiisa maanta uu ku wajahnaa dalka Uganda si uga qayb galo caleemasaarka madaxweynaha dib loo doortay Yoweri Museveni safarka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayaa waxa ku wehelinayay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Jamaal Maxamed Xasan marwada koobaad ee dalka Zainab Cabdi Macalin taliyaasha madaxweynaha iyo saraakiil kale sidoo kale madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayaa inta uu ku sugan yahay Kampala wuxuu kulamo dooceedyo la yeelan doonaa madaxda dalka Uganda iyo mas'uuliyiinta kale ka soo qayb gasha caleemasaarka madaxweynaha mar kale dib loo doortay ee dalkaasi Yoweri Museveni bishii Janaayo ee sanadkan ayay ahayd markii Yoweri Museveni lagu dhawaaqay inuu yahay ku guuleystaha doorashooyinka guud ee dalkaasi walow natiijadaasi uu qaadacay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Bobi Wine maqnaashaha madaxda ugu sareysa dalka ayaa dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda waxay ku sheegeen inay tahay mid saameyn ballaaran ku yeelan karta howlaha xilligan ka soconaya dalka xilli ay jirto khilaaf xooggan oo u dhaxeeya dawladda waqtigeedu dhamaaday iyo sidoo kale mucaaradka halka mucaaradka dhankoodu ay wadaan qorshayaal ka baxsan heshiiskii ay la galeen ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ee ciidamada looga saaray gudaha magaalada Muqdisho daawadayaal waxa daawanaysaan qaybaha hore warka galab ee Sirta Media markan hadii aynu eegno wadamada ku bahoobay ururka EAC ee bariga qaaradda Afrika ayaa go'aanka madambaysa ka gaaraya codsi la xiriira ku biiritaanka ururkaasi oo ay u dirtay dawladda federaalka Soomaaliya xogayaha ururkaasi oo lagu magacaabo Dr. Bater Mathuki ayaa shaaca ka qaaday inay bilaabeen howlihii hordhac ahaa ee diyaarinta dalka ku biiraya ururkaasi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in Soomaaliya ay u gudbiyeen shuruudaha looga baahan yahay inay buuxiso si ay uga mid noqoto wadamada ku bahoobay ururka EI arintaas waxay ahayd codsi waxay arinta taagan tahay bilowgii marka waxaan u gudbinay shuruudaha looga baahan yahay inay buuxiso waana xiriirka u horeeyay dhaxmaraya dalalka doonaya inay ku soo biiraan ururka ayuu yiri xogayaha wuxuu dhanka kale intaasi sii raaciyay waana bilownay arintaasi haatan waxaan rajaynayaa kol haddii hawshu bilaabatay in la gaari doono goorta wax kastaba ay cadaanayaan oo la gaari doono kolka uu bilaabmi doono ka hadalka ku biiridda dalkaasi ururka EAC waxaa haatan xubno ka ah dalal badan oo dhaca bariga Afrika sida Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda iyo Tanzania waxaana la filayaa in Soomaaliya ay qayb ka noqoto dalalkani markan hadii aynu eegno dawladda Kenya ayaa qaaday talaabo u muuqata mid argudasho ah kadib markii dhawaan dawladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday inuu wali hakad ku jiro keenista qaadka nooca Mira ee la keeni jira gudaha dalka Soomaaliya isla markaana laga keeni jira dalka Kenya hay'adda duulista hawada ee dalka Kenya ayaa shaacisay in hakad la geliyay dhammaan duulimaadyada diyaaradaha ka imaanaya ama tagaya Soomaaliya marka laga
reebo kuwa gargaarka diyaaradaha gaarka ee la shaqeeya hay-adaha qaramada midoobay. Sidoo kale hay-adda ayaa sheegtay in go'aankan uu dhaqan galayo laga bilaabo 11 bisha May ilaa 9 bisha soo socota ee Agoosto ee sanadkan 2021 oo ah bisha 8. Kadib soo bixitaanka go'aankan wuxuu isla markiiba saameeyay shacab u soo socday gudaha Soomaaliya kuwaas oo saaka loo diiday inay ka soo ambabaxaan dalka Kenya. Wararka ay sirta media helaysa ayaa sheegaya in talaabadan ay ka dambayso sababo la xiriira qaadka ay hakadka ku hayso dawladda Soomaaliya ee ka imaan jiray dhinaca dalka Kenya. Arrimahan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo ka hor labada dawladood ay soo celiyeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed oo go'ay dhamaadkii sanadkii hore ee 2020. Waxayna tani saameyn ballaaran ku yeelatay shacabka Soomaalida ee ku dhaqan gudaha dalka Kenya isla markaana doonaya inay u soo baxaan gudaha Soomaaliya halka dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsi ku leh dalka Kenya isla markaana ku sugan magaalada Muqdisho iyaguna qorsheynayay inay dalkaasi dib ugu laabtaan. Saameyn ballaaran ay ku yeelatay go'aankan ka soo baxay dawladda Kenya ee lagu mamnuucay socdaalka gudaha Soomaaliya. Diyaaradaha Muqdisho ka bixi jiray tagi jiray dalkaasi iyo kuwa halkaasi ka soo bixi jiray ee imaan jiray garoonka Cabdullaahi Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. madaxweynihii hore Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shaaca ka qaaday in dawladda federaalka Soomaaliya ay xayiraad saartay lacag gaaraysa 35 milyan oo dollar oo lagu talagalay in wax looga qabto fatahaadaha webiga Shabeelle ee gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Waa nasiib darro in 35 milyan oo dollar oo fatahaadaha ugu deeqeen Talyaaniga, Sweden, Midowga Yurub iyo Banka Adduunka oo loogu talagalay dooxada Shabeelle ay xanibeen wasaaradaha maaliyadda, qorsheynta iyo beeraha ee dawladda federaalka Soomaaliya. Ceeb idinku dhacday ayuu yiri madaxweynihii hore maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare qoraal uu soo dhigay bartiisa ayuuna sidaasi ku yiri. Waa markii labaad oo dawladda federaalka Soomaaliya ay xanibto lacag loogu talagalay fatahaadaha ayadoo 2 sano ka hor lacag sidan oo kale ay u xanibtay oo ka timid dawladda Djibouti. fadeexad ay kala kulantay dawladda isla markaana markii dambe ay dib u fasaxday. macada sababta hase yeeshee wasiirada dawladda qaarkood ayaa la sheegay inay qabyaalad darteeda u xanibeen mashruucyada laga fulinayo deegaanada koonfurta Soomaaliya oo ay ka soo jeedin si gaar ah wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, kan maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle iyo kan beeraha Siciid Xuseen Ciid. magaalada Jowhar oo xarunaha maamulka Hirshabelle ayaa xaafadeedu waxaa saameyn ku yeeshay fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle ee mara gobolkaasi. hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay FAO ayaa digniin ka soo saartay xaaladda xilligan ka jirta Soomaaliya iyadoo ka digtay fatahaada waaweyn oo ay sameyn karaan webiyada Shabeelle iyo Jubba. FAO ayaa sidoo kale waxay sheegtay in roobab culus ay ka da'een dhulka buuraleyda Itoobiya kuwaas oo si toos ah daadadka ugu soo shubaya gudaha Soomaaliya, gaar ahaan waxay aad u saameyn doonaan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe. gudaan saaxiibadan jecelnahay oo intayan ku soo afmeeriya warkeed kala socoteen Sirta Media tan inta ku kulmi doono warka yaga xiga. nabadgelyo. adigoo wareerin warar sugan oo xaqiiqa waxaad ka helaysaan waa Sirta Media. adigo weelka ruma Sirta Media.